roobka guga ayaa si rasmi ah uga bilaabmay deegaano badan oo ka tirsan gobolka Sool. Magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool roob da'ayay in ka badan 8 saacadood ayaa ka da'ay magaalada kaas oo saameyn ku yeeshay isu socodka dadka iyo gaadiidka. xaafado ka tirsan magaalada iyo sidoo kale wadooyinka waaweyn ayaa lagu arkiyay biyo buux dhaafiyay iyadoo laga duulayo samata bixinta fatahaadii ka dhashay biyaha roobka ayaa mas'uuliyiinta dawladda hoose ee degmada Laascaanood waxa ay gurmad u fidiyeen xaafado kala gedisan oo ku yaala magaalada Laascaanood kuwaas oo ay ka howlgaleen ciidamada dardamiska ee gobolka Sool. meeyarka magaalada Laascaanood mudane Cabdiraxiin Cali Ismaaciil oo shir saxaafadeed ku qabtay xafiiskiisa magaalada Laascaanood ayaa ka warbixiyay roobka guga iyo saameynta ay ku yeesheen magaalada Laascaanood isagoo Ilaahay ugu mahadnaqay in abaartii ay ka jabto deegaano ka tirsan degmada Laascaanood ee gobolka Sool. waa kan maayarka oo arrimahaas ka hadlaya. Ilaahay baa ku mahadsan roobkaas abaar baa ina haysay aad u ba'an Ilaahay mahadi roob wacan oo hindhoweydba roob la mid ah inaan arag baa da'ay oo maansheeyay deegaanadii. haddaan ku soo noqdo magaalada gudaheeda waad aragteen waad soo marteen meel aan rogmanayn ma jirto togaan rogmanayn ma jirto meel aan biyuhu marayn ma jiraan biyo aad iyo aad u badan baa dhex maray magaalada gudaheeda roob aad u lixaad la baa helay waa wax Ilaahay loogu maadnaqo. inta haddaan ka gudbo roobkaas wax qasaara u geystay ma jirto marka laga reebo dad ariyo ku haystay magaalada gudaheeda oo ilaa 6 qoys gaadhay intaan hadda ka war hayno oo ariyo ka laayay guri dumay ma jiro qasaaro nafeed oo dhacayna ma jiro waa Ilaahay wax loogu mahadnaqo waa ma sha Allah waan macdan Ilaahay ka sugaynay waad aragteen magaalada gudaheeda meel kasta biyo baa maraya shaqaalaha dawladda hoose iyo madaxda dawladda hoose waxay ku dadaashay biyaha sidii magaalada looga saari lahaa haday tahay booyadeen aanu galino waad arkaysan ciidankii dabdamiska oo ka shaqeynaya haday tahay in la faruuro biyihii meelaha maraan loo jeexo haday tahay qashinkii iyo daadxoortii oo ku soo ururtay shaariciyadii magaalada iyo laamigii in laga guro annagu waxaanu galnay howlgalkaas aanu galnay oo aad soo wada aragteen shaqaalihii oo meelaha kala duwan aan idin sheegay ka shaqeynaya waa Ilaahay mahadi nimcadii aan Ilaahay ka sugaynay weeye Ilaahay baa ku mahadsan. waxaan u soo jeedinayaa dadweynaha ku dhaqan magaalada Laascaanood inay ka taxadaraan waxyaalaha biyaha ku xidhaya ugu badan hadeerto guryo badan baa biyo galeen oo buuxsamay oo dadkii laga daadgureeyay. waxyaalaha keenaya in biyuhu galaan waxa kamid ah moosaskan la hordhiganayo guryaha awalna aanu la tacaalanay aanu gureynay dhagaxa iyo ciidda iyo taangiyada guryaha la hordhigayo waa waxay keeneen in biyo ku xidhaan. marka aad iyo aad baan arinta u soo jeedinayaa inay ka feejignaadaan dadka reer Laascaanood. roobkii gugu inoo bilowday insha Allah taala marka waxaan rajeynayaa inaynu ka taxadarno wixii karaankeenna wax walba Ilaahay baa qadara. Ilaahay waxaynu ka rajeynaynaa nimcada inuu siiyo nusqaanteeda inuu naga hayo nimcada saadaaday abaartiina waa jabtay dalka roobku ma wada helin degmada Laascaanoodna meelo badan aanu helin baa jirta gobolka Sool meelo badan aanu helin baa jirta degmada hadda xudun oo kale ma helin inteedii badnayd meelo yar mooyaan ma helin roobkii xalay degmada Laascaanood meelo badan baanu helin laakiin inta badan degmadii waa hela. marka waa Ilaahay mahadi waxaan u soo jeedinayaa mar labaad bulshadu haday tahay kuwa xoolo dhaqatada ee dooxiyada iyo jeexyada ku jira haday tahay kuwa magaalada gudaheeda inaynu ka taxadarno meelaha biyo mareenka aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. geesta kale maayarka degmada Laascaanood mudane Cabdiraxiin Cali Ismaaciil waxay warbaahintu wax ka weydiisay burbur soo gaaray qayb kamid ah laamiga weyn ee magaalada Laascaanood oo dhawaantan dawladda hoose ee degmadu ay dib u habeyn iyo dib u casriyeyn ba ku samaysay. aan ka jawaabo wax dhibaato oo soo gaadhay laamiga cusbaa ma jirto marka laga reebo boondadan ka horeysa Hotel Peace
oo taangi weyn oo taangiyadan biyaha ee 9 foosta qaada oo daad ku sito oo buundadii ku go'ay dabeedna markii buundadii ay cabudhay ee biyihii meel ka baxaan buundadii ay weyday ba waxa soo dhacay in biyihii ay laamigii kor uga soo baxaan xogaa ilaa 3 mitir oo laamigii cusbaa ka mid ah ba fuqay iyaduna waxa aad u sahlan shirkadii dhistay iyo injineerada dawladda hoose way ka hawlgaleen insha Allah taala iyadana sidii baan ku celin doonaa roobkii xalay da'ay iyo sida aan waxyeelo inuu geysay waa wax Ilaahay loogu mahadnaqo roobka xalay la saacado ka daay hindhoway sanadadan roob noocaasi oo magaalada gudaheeda ka daay maynaan arag marka qofkii xalay la saacado joogay wax islahaa laami baa tiraahdeen guri ku hadhi maayo roobkaasi xawligiisa iyo intuu leekaa marka su'aashaas saasan kaga jawaabaya bunda waxa yar baa gaaray laamiga aan badnay ilaa 3 mitir baa fuqay oo daamurkii sare ka fuqay yadana hadda laga hawlgalaya shirkadii dhistay iyo injineerada dawladda hoose ay ka hawlgalayaan laamiyadii hore waa run hore loo sameeyay markii hore dhaawac weyn baa gaaray oo way wada burbursanaayeen xalina dhaawac baa sii gaaray insha Allah taala wixii tamartayada waxaan u diyaarsanahay inaan ummadayada u shaqeyno haday laami tahay haday wada tahay haday wax kasto adeeg bulshada tahay inaan wixii tamartayada ka shaqeyno wixina loo doortay iyagana waxaanu ka qaban karnaa ka qabanaynaa waa siyaasadayada waa qorshaha iyaga insha Allah taala waxaan rajaynaynaa inaan waxba hakran aad iyo aad baad mahadsantiin wassalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh